ugu horreyn soo dhawow muuqaalkan waxaan kugu fahansiin doonaa habka aad lacag uga samayn karto qaybta sarifka ah ee Yowbos. Marka applicationka Yowbos waxaa hadda lagu soo kordhiyay qayb sarif ah oo dad badan lacag ka shaqayn karaan oo lacag aad ka faa'iideyso haddii aad asxaabtaada lacagaha ugu shubto oo aad sii sarifto lacagta prepaid-ka ee lagu shubto applicationkan game-ka laga ciyaaro. Marka applicationkan qof kasta oo aad lacag ugu shubto lacag baad ka faa'iideysaa marka aad lacag ugu shubto. Marka haddaba shuruudaha ku xidhan haddaba inaad qaybta sarifka ka mid noqoto oo iska diiwaan geliso iyo macluumaad dheeraad ah ayaan muuqaalkan kugu faahfaahinayaa iyo waxa aad ka faa'iidi karto qaybta sarifka haddii aad ka mid noqoto. Marka ugu horeyntii si aad qaybta sarifka isaga diiwaan geliso waxaad u baahan tahay inaad marka hore applicationka Yowbos aad la soo degto. Marka applicationka waxa ku qoran aad ka shaqaysanayso sarifka aad ku shaqaynayso YB Ludo HD baa ku qoran YB Ludo HD. marka abkan la soo degaysaa haddii aanad qaabka loola soo dega garanayn WhatsApp-ka lagu soo dirayaa linkigiisa ama hawlwadeenada WhatsApp-ka la soo xiriiraysaa Yow Ludo. marka abkan markaad soo dejiso halkan uu ku imanaya waad soo furaysaa kadibna marka aad soo furto abka halkan oo kale ku keenayaa kadibna wuxuu ku leeyahay isdiiwaan geli. marka haddii aad qof cusub tahay waxaad leedahay halkaas sign in with Google ku taalo ee cadaankaaba taabanaysaa. sign in with Google marka aad taabato wuxuu ku weydiinayaa Gmail-kee ayaad isku diiwaan gelinaysaa. marka wuxuu ku soo dhigayaa Gmail-ada telefoonkaaga kuugu dhex jira. marka waxaad ka dooranaysaa Gmail-kaaga ka dooranaysaa haddaba Gmail-kaaga ayaad ka dooranaysaa Gmail-ada halkan yaala. marka Gmail-kan baan isku diiwaan gelinayaa waa kan Gmail-keygii Axmed Macallin baa ku qoran kaasaan ku dhufanaya. marka Gmail-kaaga marka aad doorato haddii aad qof cusub tahay wuxuu ku oranayaa lambarka aad ku isticmaalaysa telefoonka geli. marka telefoonka lambarkaaga gelinaysa haddii aad qof cusub tahay hore aanu diiwaan gashanayn anu hadda laakiin hore diiwaan gashan oo lambarka geli ima oranayo. marka telefoonkaagaad gelinaysaa haddii uu telefoonka ku weydiiyo mobile numberka geli buu ku oranaya adigoo 252 lambarkaaga ka bilaabaya 61 sidaasoo kale u gelinaysaa lambarkaaga. marka lambarkaagaad gelinaysaa hadda cusub tahay anu laakiin hadda hore diiwaan gashanaa marka ima weydiinaya lambarka geli toos buu ii keenaya akoonkayga. marka haddaba haddii aad qof sarifla ah noqonayso shuruudaha ku xidhan waraaq waa lagu soo dirayaa shuruudaha sariflaha looga baahan yahay ay ku qoran tahay. marka waraaqda iyada ah waa lagu soo dirayaa marka aad nala soo xidhiidho aad WhatsApp-ka nagala soo xidhiidho ee aad tiraaho waxaan rabaa in aan sarifla noqdo kana shaqaysto application-kan Yowbos. marka qaybta sarifka marka waa lagu qorayaa dadka sariflayaasha baa lagu daraya laakiinse shuruudaheega WhatsApp-kaad naga soo weydiinaysaa lagugu soo diraya. markaad halkan taagan tahay waxa aad kaliya u baahan tahay marka aad shuruudaha ku soo qanacdo ee shuruudaha aad akhrisato ee aad dhamaystirato waxaad u baahan tahay in aad lacag ku shubato akoonkaagan lagu sameeyay aad samaysatay adiga oo Gmail-kaaga u soo sheegaya hawlwadeenada lacagaha ku shuba ee ka shaqeeya Yowbos. marka waxaad u sheegaysaa Gmail-kaaga sideed ku ogaanaysaa halka yar ee magacaaga ku qoran yahay dusha sare ayaad soo furaysaa taabanaysaa eedaa yar baa taabanaysaa eedaa yar marka aad taabato waxa aad kadibna dooranaysaa Gmail-kaagi waa kan Mo Ali Gmail-kaygi waa kan Gmail-kaagaasaad u soo diraysaa hawlwadeenada kadibna way kugu soo shubayaan lacagta Gmail-kaagaas screenshot intaad uga soo qaado. marka qofka sariflaha ah lacagta ugu yar ku shuban karaa waa $20 $20 marka aad soo dirsato ee lagugu soo shubo akoonkaaga sarifka waxa aad sameynaysaa qof kasta oo aad ugu shubto waxa lagu dheeraysiinayaa lacag. tusaale ahaan $20 soo dirsatay $24 bay kugu soo shubaysaa qolada game-ku kugu soo shubayaan $24 markii qolada game-ku kugu soo shubaan adiga waxa ku dheer $4 waa boqolkiiba 20 baa lagu saaray lacagtaadii kadibna waad iibinaysaa $24 waad sii iibinaysaa asxaabtaada oo kala tusaale ahaan ka dhaadhicinaysaa application-kii waxaad leedahay ku shubta game-kan lacagta waa kaas loo ciyaaraa way fahansiinaysaa qof kasto kadibna aad lacag ugu shubto lacag baa ku saarnaanaysa boqolkiiba 20 kadibna $24 ayaa ku soo xiroonaya marka aad sii iibiso prepaid-kii lagugu soo shubay ee $20 lagugu soo shubay $24 baad ka helaysaa. haddaad $100 ku shubato game-kan oo aad asxaabtaada $100 ka sii iibiso ugu sii shubta iyaga akoonkooda game-ka ay ku ciyaarayaan lacagta ka shaqeynayaan waxa aad ka faa'iideysaa $20 boqolkii dollarba. marka waa lacag aad u fiican oo si fudud aad ku shaqaysan karto. marka haddii aad jeceshahay inaad qaybtan sarifka ka mid noqoto kaliya waxa lagaga baahan yahay in aad lacag ku shubato $20 marka aad ku shubato halkan ay kugu soo dhacaysaa $24 iyadoo ku noqotay oo $4 oo commission lagu dheeraysiiyay. haddaad $100 ku shubato waxa lagugu soo shubayaa $120 baa lagugu soo shubayaa.
$120 baad iibinaysaa, $120 lacag caadi ah baad ka soo samaynaysaa dadka markaad ka iibiso. marka waa sidaas uu shaqeynaya qaybta sarifku. haddaba marka aad lacagtii ku shubato ee ay halkan ku timaado lacagtii, habkee ayaa dadka ugu shubaysaa lacagtii? marka qof baa lacag kuu soo dirsado ka dhaadhicisay barnaamijkii, qofkii markuu ku yidhaa igu soo shub geemka lacag, waxaad samaynaysaa halkan baad taabanaysaa diamondka yar ku sawiraya. diamondkan marka aad taabato, diamondkan yar halkaa bidix ku sawiran marka aad taabato, waxaad gelinaysaa gmailka qofka lacagta aad ugu shubayso. gmailka qofka lacagta aad ugu shubaysaad gelinaysaa. tusaale ahaan waxaad leedahay john22@gmail.com. tusaale ahaan qofka john gmailkiisu intaa yahay baan lacag ugu shubaya. marka markastood qorayso gmailka far yaryar waa inay noqotaa. kabitaalka waad ka ilaalinaysaa. markaad qofka lacagta ugu shubayso khaanada waxaad gelin kartaa qoraal aan kabitaal lahayn. kabitaal leetarkaaga waa inuu xidhnaadaa markaad qoraalka halkan ku qorayso. mar walbana gmailka qofku kuu soo diray iyo waa inaad iska hubisaa inay isku mid yihiin, iyo waxaana aad qofka halkan aad gelisay lacagta gmailkaad ugu shubayso iyo gmailku qofka kuu soo dirsaday, mar walba waa inaad isku egtaa oo aanaad lacagta iska dirin adigoon hubsan gmailkaad lacagta qofka ugu shubayso. intaa kadib markaad halkan gmailka qofka geliso, halkan baad gelinaysaa hoose interjames lagu leeyahay, ayaad gelinaysaa xadiga lacagta aad ugu shubayso qofka. marka tusaale ahaan waxaan geliyey 5 jeemis baan geliyey. 5 jeemis macnaheedu waxa weeyaan waa $5. halka diamond waa $1 buu kugu dhigmaa. marka $5 baan geliyey. $5 marka aan geliyo send baan taabanaya halka ku qoran tahay. send marka aad taabato lacagtii qofkii sidaas ugu tagaysaa, sending buu leeyahay, hadhaagaaga ka go'aysaa. lacagtii 38 hayda igu jirtay iminka waxa weeyaan waa $33. marka saas uu shaqeynaya barnaamijkani. markasta marka tusaale ahaan maanta oo kale lacagtii aad iibsatay aad soo dirsatay lagugu soo shubay akoonkaaga sarifka aad dhamaystirtay wada dhamayso, haddana tu kalaad ku shubanaysaa intaad shirkadda la soo hadasho, kadibna taa kale marka lagugu soo shubo, kadibna waad sii iibinaysaa, haddana tu kalaad ku shubanaysaa, haddana waad sii iibinaysaa. saasay kuugu shaqeynaya systemku. marka haddaad maalintii 100 qof ugu shubto lacag badan baad faa'iidi kartaa. waxaa laga yaabaa maalintii inaad $50 ilaa $100 oo bilaa hadal aad faa'iido haddaad dadka ugu soo shubto lacagta. adu kaliya inaad lacagta ugu shubto weeyaan shaqadaadu. shuruudana way leedahay barnaamijku, shuruudu leeyahay, shuruudihiisana waa inaad ku dhaqantaa. haddii aad shuruudihiisa ku dhaqmi weydo akoonka waa lagaa xidhayaa, qaybta sarifkana waa lagaa mamnuucaya. marka qof kale lacag uma diri karo qofka sariflaha ah ayuunbaa qof lacag ugu shubi karaa. qofkaa sariflaha unbaa la ogol yahay inuu qof lacag ugu shubo. qof kale oo lacag ugu shubi karo qof ma jiro. waa laga xayiraya akoonkiisa qofka qof lacag u dira isagoo aan sarifla ahayn. marka waa sidaa weeyaan qaabkaas u shaqeynaya sarifku. sariflahana looma ogola inuu geemka ciyaaro, lacagna ka sameeyo geemka. qaybta geemka inaad ciyaarto laguma ogola haddaad sarifla tahay. sarifluhu lacagta qaybta lacag ku shubistu mu ka shaqaysanaya. akoonkaaga wax ciyaar aad ciyaartay in lagu arko lama ogola. marka sarifluhu waa qaabkaas u shaqeynaya. sariflo walbana ID baa la siinaya. sariflaha markuu lacagta soo dirsado waxaa la leeyahay sariflahaaga ID-giisa noo sheeg baa la leeyahay. ID-gaaga aad u sheegaysaa, kadibna lacagtu way kuu soo dhacaysaa si toosa markaaba. markaa saas uu shaqeynaya barnaamijka sarifku. marka aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaa haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto qaybta sariflayaasha ee Yowboss. markaad lacagta haddaad sarifla tahay, haddaad lacag ku shubanayso, whatsappadu baad la soo xiriiraysaa Yowboss. marka whatsappka markaad la soo hadasho lacagtaad u soo diraysaa. marka lacagta soo dirto waa lagugu soo shubaya geemkaaga, waad sii iibinaysaa adiguna lacagtii. sidaasaanaad ku faa'iidaysaa, kadibna lacagtaadii baad kala soo baxaysaa geemkii markaad shaqaysato. marka nidaamkaas uu shaqeynayaa. lacag la bixidda, qof kasta oo lacag la baxaya oo geemkan ciyaara, qaybta lacag la bixidda waxaa qaabilsan Yowboss. haddii qof geemka ciyaara uu lacag shaqaysto, hawlwadeenada Yowboss baa ayaa uga saaraya lacagta, uguna soo diraya lambarkiisa. laakiinse qofka sarifla ahi qof lacag uma saari karo. hadduu qof lacag kuu soo dirsado jeemisa ama lacag uu kuu soo dirsado uu la baxayo, uma bixin kartid adigu. laakiin lacagta waxa bixin kara waxa bixin karta qaybtan kale waxa bixinaysa Yowboss. qaybta Yowboss shirkadda bixinaysa qofka lacagta la baxaya, shirkadda u diraysa qofka lacagtiisa. laakiin sariflayaashu wax lacag qof uma diri karaan. lacag uu soo dirsaday maahaane lacag kale ugu shubi kari maysid. lacagta markuu EFC-gaaga ama saadaada ama sahalkaaga ama idaabtaada kuugu soo diro qofku ugu shub kadibna akoonkiisa geemka. laakiin lacag uma saari kartid intuu kuu soo diro lacagta ku dhex jirta geemka uma saari kartid qof. markaasaa weeyaan walaal, aad baa mahadsantahay.